ومناسبة سهر سرا لو سو agaasimay oo habeenkii xalay ka qabsoontay hotelka Daale ee magaalada Burco isla markaasina uu hankiisa murashaxnimo ku shaacinayay Aamin Saleebaan Jaamac oo u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmada Burco Salaadiin Cuqaal dhalinyaro haween iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Axmed Maxamed iyo sidoo kale Caaqil Faysal Xaaji Cali kan waxaan uga ducaynayaa Ilaahay inuu xilka ku asturo oo uu noqdo mid ummadda u shaqeeya oo cadaalad ugu shaqeeya ayaan asagana Ilaahay uga rajaynayaa guushaad qaado ambiyow qaado wadmarisa Allah ku diro Allah ku waafaqo dadkina wax ku taro kii wax ku taranabo sidoo kale intii munaasabadani socotay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina murashaxa bogaadiyay qaar ka mid ah marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb galay munaasabadan waa loo duceeyay in Ilaahay uu soo saaxo xilka uu ku aflaxo markuu ku aflaxana in alla ku alaamiyo qabyal bal ugu salada qabyal daan oo noqdo xildhibaan u shaqeeya qaranka Soomaaliya inay u sameeyeen waxaan leeyahay musharaxa soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa Allah furan qalbi fayow iyo farxad waa u ducaynaynaa waa soo dhaweynaynaa waana la soo xuray waxa weeye odayaashii hore guurtiday ka buuxi jiray baarlamaanka noocaydii bay ahayn waa laga guuray dhalinyarada laga dhigayaa imaka hadii Ilaahay ka dhigo Saleebaan kulul runtii waa muwaadin wax badan qabtay inankiisana saas oo kale baan u jecelahay aanu ka rajaynaynaa inuu wax kasta qabto Togdheer u qabto Somaliland u qabto heerka u qabto aan taasaan filayaa insha Allah waxaan leenahay xilka Allah ku fududeeyo waxaan rajaynayaa inay ku daydaan dadka kale ee anaguba ka mid nahay inay Aamin oo kale soo xulaan soo qoyska iyo degmada iyo gobolka iyo Somaliland oo ugu taro qabiilka soo saraxay ee keenayna waxaan leeyahay haddaan wada dhalo warmaha u dhigan warwareegaya waa bashow dhibay guulayso in kaarka la qaato dhalinyaradu kaarka qaadato isticmaaliso kuwa ka lumay soo qaato kii haysto xifdiyo marka diiwaangelinta la galay ee kaarka la qaato in ninkaa la soo saaro oo loo codeeyo Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo baxo waa soo dhaweynaynaa waana maxay ahayd hambalyeynayna si musharaxeena aynu soo saarno maalinta runtii codeynta waxa ugu muhiimsan ee ugu weyn waa kaarka lagu codeynayo inuu helo kii uu ka lumay inuu raadsado kii uu meel kale kaga jiro waa inuu doontaa kaarkaas muhiim ah insha Allah waxaan rajaynayaa in runtii aad qaadan doontaan soo saari doontaan hal duco ayuu marfarayaa in Ilaahay ku guuleeyo xilka doorashadii bay lagu soo dhow cidda kaliya ee maanta wax soo saari karta waa haweenka iyo dhalinyarada ayuuba wax soo saari kara iyaga waxaan dardaarmaya inay qaataan kaarka codbixinta maanta xildhibaan Aamin Saleebaan Jaamac Rooble waxaan oran karaa haddii uu caawa jiri lahaa qof reer Burco oo loo soo taagi lahaa in qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland meesha sharciga loogu dejinayo uu dhex tago in caawa loo dooray qofkii matali lahaa gobolka Togdheer xildhibaanada ka soo baxaya xildhibaanka reerkiisu uu magacaabaya laakiin qaranku matalaya qaranku sharciga u dejinaya waa inuu aqoontiisii iyo kartidiisii iyo dareenkeedaba leeyahay ugu dambeyntii waxa munaasabadani soo gabagabiyay murashax Aamin Saleebaan isagoona si rasmi ah u shaaciyay inuu yahay murashax u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Togdheer aad baan ugu mahad celinayaa dadweynaha sida sharaf leh oo qurux badan oo ka soo qayb gashay xafladana caawa ay tahay tii musharaxnimadeeda golaha wakiilada ee Somaliland marka waxaan naga rajaynayaa oo aniga codsanayaa inaad codkaysiisaan codka baysiinaysan diiwaangelintii baa hadhay diiwaangelintii way soo dhawaatay waa bishan dhamaadkeeda waxaan naga rajaynayaa wixii nabayna diiwaangelisan
oo kaarka qaataan cabdiraxmaan cabdilaahi xasan telefishinka Som News magaalada Burco